wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay shirweyne caalami ah oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaaliland oo ay ku midaysan yihiin shirka waxaa la ka jeediyay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta tiknoolajiyadda iyo boosaha diinta iyo uqaafta wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo ka warramay doorka ay warbaahintu ku leedahay horumarka bulshada ee warka loo tabinaya ay u adeegsanayaan waxa loo tabinayo waxa way barigii hore miidiyuhu iyagu baa warka bixin jiray imika laakiin qayb ka mid ah bulshada ayaa maxay ku saameynaysaa waxa go'an noqdo marka interactive ta saddexaadna waa financingka fanka halkee laga helaya industry adduunka jira wuxuu u baahan yahay waa fan weey fankana technology-ga maaragtay ayaa shape gareynaya saxaafadda waxa ugu badan wax ka heshaa waa xayisiis weey waa advertisement marka gasho technology wax isbedelay qaabkii wax loo xayisiinay marka tusaale ahaan jaraa'idka qaabka loogu xayisiiyo TV-yada qaabka loogu xayisiiyo website-yada qaabka loogu xayisiiyo intaba waxa ka duwan qaabka baraha bulshada loogu xayisiiyo waa runtii hawsha haysaana waa hawsha ugu muhiimsanayd qarankan warba qaadaysaan oo dad gaarsiinaysaan warka qaadaysaan dad gaarsiinaysaan waxaan isla garanaynaa inuu noqdo war sax ah ama war run ah waayo cidda ugu muhiimsan ee la iska ilaalinaya waa Ilaahay ma aha aadamaha inkastoo dib leeyahay oo dibta aadamaha u geysanayo laakiin tuu geysanayo Ilaahay iyo diinteena ayaa ka weyn taana waxaan u maleynayaa in dhammaanteen in ka wada dheregsanahay warku waa muhiim marka la eegayo saxaafadda saddexda qaybood oo ah political development economical development iyo social development saddexda dhinac baa la eegi doonaa maadaama waqtigu yar yahay waxaan isku dayi doonaa in aan soo gaabiyo markaan ka hadlayo arrimaha xagga political development-ka ah ee ay saxaafaddu qayb ka noqon karto haddii aan political development una jirin national development isaga laftigiisa waxbaa ka dhinaanaya marka waxa muhiim ah in ay saxaafaddu si objective ah ay uga waranto arrimaha ku saabsan democracy-ga iyo good governance political transparency-ga waxa la yiraahdo iyo the foreign policy-ga wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Hinde Jaamac Gaani ayaa tilmaantay doorka ay warbaahintu ku leedahay horumarinta arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan u leenahay wadad caadiya waxba ka qaldamay oo waxba waan loo sheegin caadiga ku soo celiyo oo sida wanaagsan ee dadka miirka qaba wax isugu sheegaan dadka wax ugu tabiya oo u gaarsiiya waxaan runtii jecelahay inaan ku soo ururiyo qofku haddii uu isagu dhibaato geysto wax weeyaan isaga uunbaa u dabrama ama u xidhma run ahaantii ma qabo Somaliland intii ay jirtay iyo maanta in ay wariyahooda oo wax alaale wax dambiyahoo uu geystay wiil iyo gabadh ku doonayaba ha ahaadee intay iska soo qabato inay xabsiga iska dhigto Somaliland waxay ka mid tahay meelaha dimuqraadiyaddu runtii ay da'deeda ka weyn tahay ee sida tooska ah uga hana qaaday iyadoo bulshadayda aan u mahad celinayo kuna amaanayo in aanay ahayn dadka isku dulnoolaanshaha iyo dulmiga jecel ee ay yihiin dad wax wada lahaanshaha iyo midnimada jecel run ahaantii saxaafaddu waxyaabaha ay gudbinaysay haddii aanay bulsho wacan ahayn bulshadaydu way iskula dareeri lahaayeen waxaan leeyahay bal idinku wararka marka malaa waa duubtaan uun baan isleeyahay markaa duubtaan guddoomiyihiinana u yeedho bal dib u daawada dabadeedna qiimeeyo miyay wacan yihiin mise way xun yihiin waxaan runtii caddaynayaa oo aan mugdi ku jirin maanta iyo maalintii dawladdii ka horreysay maanta ta joogta ee xisbiga kulmiye uu lahaa ee hormuudka ka ahaa mujaahidkii weynaahay Axmed Siilaanyo in ay saxaafaddu ku tallaabsatay wax la taaban karo hase yeeshee wax weeyaan waan baahan tahay baalay looma bahala cuno waa suxufi qofku hadduu dambiga galo dee laguma daayo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja xubin ka socotay ururka suxufiyiinta haweenka ee Wiija ayaa ka hadlay horumarka ay warbaahintu sameysay 27 sano ay Soomaaliland jirtay kala duwanaanshiyaha caqabadaha jira iyo sidii loo xalin lahaa oo ay ku shaqayso inta badan intay taminiyaan saxafiyiinta dunida oo ah dal nabdoon dal runtii baahi kasta oo ay qabaan cidda ay kaga xidhan tahay ay u bandhigi karaan taasoonu aragna runtii kulamadaanu ka qayb galay cabashooyinka ka taagan saxaafadda dunida gaar ahaan mandaqada runtii inaanay inala qabin oo ay ku dhibaataysan yihiin dalalka mandaqada waxaa la sheegaa Kenya oo kale inay tahay dalalka ugu horumarsan haddana waad degeysanaysaan warbixintiisa ka warbaahinta ama suxufiyiinta dalkaas tacadiyada iyo dhibaatooyinka lagu hayo ay ka sheeganayeen
hase yeeshee waxaan qabnaa saxaafadda somalilan inay dhibaato fara badan runtii ay haysato laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in wasaaraddii ay isku keentay saxaafaddii dalka saxaafaddii madaxa bannaanayd ay siisay space ay kaga hadlaan cabashooyinkooda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa ka hadlay wada shaqaynta fiican ee ka dhaxaysa warbaahinta iyo hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ammaanka dalka saxaafaddu su-aasha isweydiinta li waxa weeye may mid iyadu dawlad gooniya abaa ma mid aan iyadiyo qarankeedu wada shaqayninbaa ma mid iyadiyo qarankeedu qaab ay u wada shaqaystaan ay leeyihiin guddoomiyaha solja hadda waa ka halkan ka hadlay warbixin fiicanna wuu bixiyey laakiin hadda wuxuu hadlay iyadoo saxaafaddu qolo yaroo dawladahoo saxaafadda somalilan la yidhaahdo oo aan qaranka somalilan aanay meel la iskaga xidhmin saxaafaddu waxa ay leedahay ururka solja iyo urur kalaa jiri jiray mala hadda waxay isugu badan tahay ururka solja waxa kale oo abuurmay ururka maxaanku dhahdaye hablaha oo wejiba abuurmay warbixinta hadda uu noo soo gudbiyey guddoomiyaha saxaafaddu ururka haweenku waxba kuma laha waa solja soljana keligii ma noqonayo ururka saxaafadda qaranka somalilan suxufiyiin baanu ku xidhnay ceelafweyn waxaanaanu u marnay sharciga oo waaran baa maxkamadda looga jaray maxay sameeyeen suxufiyiintaanu ka marnay laba qabiil baa isku dilayay ceelafweyn suxufiyiintaanu xidhnayna labada beelood bay ka mid ahaayeen mid waliba beeshoodiibuu intuu meel cidlaan la tegey ayaa laga duubay warkii subaxdiina dagaalkii baa dhacay dhimashadii dhaawacba muu dhacay soljana way u ashkatoonaysaa soo maaha because waa la ogoshihiin janaaladii tv-ga ee ay ka tirsanayeenna way sii daayeen arda miyaydaan fadhiyin codsiyadiinaasna waanu aqbala annaka waraabayaalna nooma tihdin qolo cadowana nooma tihdin